kuwaani waa shacabka Soomaaliya, khaasatan waa shacabka Muqdisho. waxay u soo bannaan baxeen taageero u muujinta madaxweynaha Soomaaliya kadib markuu talada dalka Soomaaliya ku guuleystay sanadii 2017 8 Febraayo. waxay ahayd maalin ku weyn qulubta shacabka Soomaaliyeed, maalintaas oo heleen qofka ay iyagu taageerayeen ayna jeclaayeen inuu ku guuleystay xilka Soomaaliya. 4 sano oo madaxweynaha Soomaaliya uu xukumayay talada Soomaaliya, taageerida shacabka Soomaaliya waxba iskama bedelin. Farmaajo waa shakhsiga xilligan ugu taageerada badan gudaha Soomaaliya. wuxuu haystaa taageerada guud ahaan taageerada shacabka Soomaaliyeed. waxaa jira dowlado shisheeye oo kusoo duulay dalkeena si ay iskugu diraan ama ay iskaga horkeenaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda, iyagoo adeegsanaya ama u sii maraya dad Soomaali ah laakiin ku shaqeynaya ama u shaqeynaya danaha dalalka shisheeye. haddaba shacabka Soomaaliyeed waxaa la gudboon, ma laga yaabaa taageerada qalbiga ah inay u bedelaan ficil oo ay difaacaan dalka iyo dadkaba? haddaba dhagayste, aragtidu waa mid ku qusaysa adiga iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed. aragtidaada bal commentiga noogu reeb, sidoo kale like iyo subscribe basaar si ay dhiirigelin noogu noqoto. mahadsanid.